sheekooyinka kale ee iyaga laftirkoodu xigmadda wata oo aad la yaabisid sida xigmadda ugu dhiibiyaan waxa weeyaan oday reer Muqdisho ah oo inay wiilkiisu Norway degan yahay ayaa waxa dhacaysa inuu wiilkiisa maalinta dambe la telefoon soo diray oranayo marka wuxuu ahaa oday maartay oday miskiina oo aad u fiican oo duco badan oo iimaan leh markaasuu ku oranayo aabo de maartay gabaraan guursi soo leeyahay ara war fiican ah sheegtay gabartii ay ahayd oo dhan soo gabartaan waxay ahayd maartay soo gabar Soomaali ma gabar cadaan ah odayga gabar cadaan ah marka odayga hadda bal sida farshaxnimada loo sheegay barfiir sidii odayaasha Soomaalida ku muqayliyay markiiba mu boodin budlam boodin wuxuu yiri areegaariyo waa fiicantahay guurkuna waa wax fiican ma xasata markii aan gurigeen deganeen suuqa xoolaha cidii dariskeenna ma xasata markaas waa xasata cidaas yaa ahayd waa xasata duqi oo Sheekh Cali maxaas xoolo ka qabiyo su'aal soo weydiinay oday markaas dibiyo lahaa markaas Sheekh Cali dibiyo lahaa hay dibigaas maxaa ugu subin jiray Sheekh Cali wuxuu dibigaas sacayaasha ay dadka kale u keensan jireen ugu boodi jiray marka saasa lacag lagu siin jiray Sheekh Cali markaas yiri way markaas yiri war fiican waa si fiican oo xasuusta markaas yiri ma xasuusta cid waliga ma aragtay cid oo inta Sheekh Cali u timid dhahay dibigiini weeshin u dhalay qaata markaas yiri ma arag markaas igaari hadii aad dibigi Sheekh Cali Norway ka noqonaysid adle waay